salaamullaahi calaykum walaalahay dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa meel kastoo daafaha caalamka kaga sugan tihiin. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. haddii aad ka mid tahay asxaabtaydii horena fadlan muuqaalka like noo saar. waxay noo tahay dhiirigelin, adigana waxay kaa dhibaysaa ma jirto. maanta labada qof ee wada socotaa caqabado fara badan ayaa ka hor imaanaya. caqabadahaasina waxaa muhiima inuu qofku ogaado. markaad qof la socoto waa inaad iska ilaalisa ama aad ogaatid oo aad ildheer ku eegtid caqabadaha idinku imaan karaa, adigu qaybta aad ku leedahay iyo qofkani qaybta uu ku leeyahay, oo si cadaalada oo miisaaman aad u eegi kartid. hadduu qofkani dhibaatooyin aanad u dulqaadan karin uu kugu haya mar walba, kuguna samaynaya adiga. waayo waxaa inta badan dhacday in qofka aynu la soconno aynaan u sheegin waxyaabaha aynu dhibsanayno. waxaana dhacda mararka qaarkood qofka aad muddo isla socotaan inuu wax sameeyo, weligaana aanad kala hadlin, waayo adiga naf ahaantaadii baan u sheegin qofkan waxyaabaha inaad dhibsanayso. marka uu qaladkii galo ama wixii ay dhacaan, in markaa adiga oo dhanba aad qaracantid oo qofkiiba aad la noqotid qof cusub. markaa waxa fiican in qofka inta aad la socotid waa inaad u sheegtaa waxyaabaha aad dhibsanayso. sidoo kalena haddii uu wiil yahay iyo haddii uu gabadh yahayba, isna waa inuu kuu sheego waxyaabaha uu dhibsanayo. tani waxay keenaysaa in labadiinnaba aad yeelataan xad iyo xuduud idin dhexaysa, oo qof walbaba uu qofkan kala ilaaliyo oo dhowro. shaki ma laha labada qof marka ay wada socdaan way isku dhacayaan, iskhilaafayaan, fakar ayay ku kala duwanaanayaan oo way ismaandhaafayaan. dhibaatada jirtaa waxay tahay badi dadku marka ay isla socdaan, qofkan ay la socdaan uma sheegaan waxyaabaha ay dhibsanayaan. waxaana dhacdaa qofku waxaanu shalay qofka kale u sheegin markay dhacaan inuu xidhiirku dhaawacmo. haddaba waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo, haddii aan shalay laguu sheegin qaladkan, digniinna aan lagaa siinin, kadibna aad qaladkii gashay, hase yeeshee qofkii uu damco inuu kaa tago, lambar 1 raaligelin buuxda ka bixi. waa marka labaadee xasuusi inaanu marka horeba kaala hadlin. kama hadlayo khiyaano iyo inaad qof kale la socotid, laakiin waa intaa wixii ka soo hadhay. markaaad intaa martid wixii ka dambeeya, liidashada ugu weyne qofka bini'aadamka ahi uu maraa waa qofkaasoo ka tegaya inuu baryootamo, uu yidhaahdo waan ku jeclahay, axdigeenni meeyey, ballanteenni meeday. rag iyo dumarka aad doontaba ahaw, ha isu liidin qof bini'aadana, waayo waxaa dhici karta adiguba inaad ila qirtid oo aad tidhaahdid xaaladdii soo martay ayaan xasuustaa. qof intaad qalad ka gashay ama qalad kaa dhacay adiga, intaa kadib uu qofkii kaa tegay ood silicday oo qalbigu ku jabay ood bariday sidii inaad beerkaaga iyo calooshaadii aad dibadda keentay oo kale. waabaad keentay oo hadal baad ku keentay, aad qofkan isu soo bandhigtay. haddana sidaasoy tahay aad aragtay qofkii oo kibraya oo kugu jeesjeesaya oo telefoonkii kaa baloogaya oo si nacabtinimo ay ka buuxdo oo qof la jecel yahayba aan loola dhaqmin. qofkii oo kula dhaqmaya sawmaanaad arkin. maxay tahay haddaba mushkiladdu? markaa mushkiladdu waxay tahay adigaa qiimahaaga garan waayey. booska aad taagan tahay waan ku baryayaa, hayga tegin, ballanteenni meeday, ma seexdo, cunto ma cuni doono, nolosha la'aanta ma jirayso. jooji haddaba baryada noocan oo kale ah. qaladkii aad gashay waad qiratay, dhibaatadii dhacday qaybtii aad ku lahayd, adigu waajibkii ku saaraa waad gudatay. intaa wixii ka dambeeya inaad baryootantid maaha. waxyaabaha ama teedka ka dila labada qof xidhiirka ka dhexeeya, ama dadka qaarkood ay gumaysiga u sii galaan inta aysan guursan, waa inay marka horeba qofka ay la socdaan ay ilaa xad dhulka isu dhigaan. waan ogahay bulshadeenna inta badan waxaa ku baahsan ninku inuu gabadha baryo oo beerkiisa bannaanka u soo dhigo, kadibna uu dhulka isjiido. maxaa dhacaya markaa? dadka hadda isbaryayaa marka ay isguursadaan ninkii sidaa loola dhaqmi jiray, berri markuu gabadha guri la galo ma waxay kula tahay inuu ixsaan u haynayo? maya. wuxuu leeyahay shalay way iskibrin jirtay markii ay gabadha ahayd, laakiin maanta inay isu kay kibriso xaq maahan. haddaba waxa kani waa wax kuu kaydsan adiga. markaa adigu qof bini'aadana lama baryo. haddaad doonaysid guri wanaagsan oo deggan oo la kala dambeeyo, xushmad, ixtiraam, kalgacal, guri uu ka buuxo haddii aad doonayso inaad ku noolaato, qofka marka hore gumaysi laysuma sii geliyo oo laysuma duleeyo. qof adiga oo kalea damiirkaagii iyo dhiiggaagii meeyey.
si kastoo aad qofkan u jeceshahay waa inaad ku joojiso xadka uu qofkani leeyahay. jacaylka aad u qabtaana ma keensanayo inaad ilaa xadkaa isu dulayso oo aad isu liiddo qofkan. waana waxyaabaha jira maanta ee la arkayo. jacaylka dhan ee la sheegayo ee bulshada ku dhex baahsan dadku ay iska wadwadaan, afkana ay ka leeyihiin, balse qalbiga beenta ka ah waa waxyaabaha muuqdeed arkayso. caqabadda ugu weyna maanta ku ah ama teedkana ka dilay dareenkii ay isu hayn lahaayeen labada qof marka ay guri wada galaan, oo labadii qofba marka ay guri wada galaan waxay noqonayaan sidii laba qof oo hotel u soo wada hoyday. maxaa dhacay inta badan gumaysiga iyo xushmad la-aanta labada qof marka ay wada socdaan, qofba qofka kale uu ka qaadanayo ee uu ka aqbalayo ayaa waxay keenaysaa gurigu inuu cidhiidhi adduun iyo cadaab uu kugu noqdo. haddaba hadalkayga gunaanadkiisu waxa uu yahay, qof bini'aadana oo go'aansaday inuu kaa tago weligaa oohintaada iyo beerkaaga bannaanka looma soo dhigo. sharaftaada iyo qofnimadaada garo. adduunyadu way ballaadhan tahay. haddii qofkani kaa tago oo ku garan waayey adiga kuna fahmi waayo, lagama sii daba calaacalo. dad badani qaladka ay sameeyaan waxay tahay qofku marka uu ku dhaho waan kaa tegayaa, xidhiidhkeennina halkaa ayaan ku joojiyey, xidhiidhkaasna uu midkood iska casilo kuna dhaho halkaa ayaan ku gebagabeeyey. dhibaatada jirtaa waxay tahay midka kale wuxuu leeyahay weligay waan ku jeclaan doonaa, qof ilaa xadkaa kuu muujiyey inuusan dan iyo damactoona kaa lahayn. sidee afkaaga iyo damiirkaagu u ogolaadeen inaad tidhaahdid weligay waan ku jeclaan doonaa? inaad xasuusisid muhiim maaha. axdigii iyo ballanteennii meeday meesha ma taallo, waayo qofkani waa qof caqli leh ee ilmo yar lama hadlaysid. haddaba marka aad qof la socotid waxaad iska ilaalisaa liidashada iyo gumaysiga dahsoon ee aad isgelinaysaan hadda idinkoo nolol wadaagin. qof walbaaba waa xor. telefoonkaaga xor baad u tahay, social mediahaaga xor baad u tahay, naftaada xor baad u tahay. ee ka taxadar gumaysiga ka horreeya guurka ee ay dad fara badani maanta isgeliyeen si aydaan u dareemin berri inuu qofba qofka kale uu xabsi ugu jiro. waa intaa muuqaalkeenni. waxaan rajaynayaa inay wax badan idinka caawin doonto. haddii aad ka heshay ama uu ku cajabgeliyey muuqaalkani, fadlan qaybta hoose kommentiga waxaad noogu soo qortaa wixii kaa cajabiyey ama aad ka heshay muuqaalkan. tan iyo muuqaalkeenna xiga waxaan idinku dhaafay nabadgelyo.